xafladihii kala duwanaa ee loo qabanayay ardayda dugsiyada kala duwan ee dalkan Finland ayaa si habsami leh uga socota dalkan Finland iyadoo laga nasanayo waxbarashadii oo kadibna la isku diyaarinayo bixitaanka fasaxa samarka ayaa ururka raabidada islaamka ee magaalada Faanta ee wadanka Finland uu qabtay xaflad lagu dhiirigelinayo ardayda waxaana ka soo qayb galay ardaydii iyo waalidiintoodii waxaana loo qaybiyay hadiyado kala duwan ardaydaasi oo isugu jira dugsiyada kala duwan ee waxbarashada dalkan Finland ugu horreyn halkaasi waxa ka hadlay Sheekh Maxamed Salaan hadaladiisina waxa ka mid ahaa sidan marka waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah ta'ala hadalka ku dheeraan maayo waxaan halkan laba kalmood baan ka oranayaa mid waa tii guud oo waxaan is xasuusinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa dadka muslimiinta meel ay isku yimaadaan in hadiyo goor is xasuusiyaan Ilaahay cabsidiisa in Ilaahay laga cabsado in walaartinimada la dhowro in dadka muslimiinta ay gacmaha is wada qabsadaan insha Allah ta'ala fasax baynu galeynaa fasaxaasina waxa weeyaan waqti badan oo firaaqa soo bixi doonta waalidiinta mid baa la gudboon in caruurta loo sameeyo waqti hadii ay wadankan joogaan yahay haday maad wadanka ka baxayaan fasax u baxayaanba boosaska ugu horeeya inaynu ku dadaalo weeyaan ma inaynu meelaha hoose ku qanacno weeyaan inaynu ku qanacno meelaha hoose ma aha inaynu ku qanacno meelaha ugu sareeya marka waqtigu waa ordaya waxaan kale u mahad celinayaa waalidiinta waxaan leeyahay diinta islaamka wax badan ay ka hadashay cilmigu waa nuur waana wax xaqiiqo ah waxaan rabaa inaan caruurta u sheego iyo waalidiintaba rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markii loo yimid ee jibriil u yimid jibriil ma uusan dhihin waxbaan ku barayaa jibriil alayhi salaam ma uusan dhihin waxbaan ku barayaa rasuulku waxa la yiri iqra kelmadaas waa amar ilaahayna wuu ogyahay rasuulku inuu ah ummi waxna qoro waxna akhrin hadan ilaahay wuxuu yiri amar uu sii yiri iqra bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum anigoo ku hadlaayo magaca hooyooyinka Koyba Kula sanduuqsiyadka 2014-2015 dhammaan waxaan leenahay dhalinyartii soo dadaashay wax soo baratay aad iyo aad u mahadsan yihiin iyo maamulayaasha xafladda maanta noogu talagalay inay noo sameeyaan ayagana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan waa mahadsantihiin habaarin haddaad habaarto ilmahaaga waad la helaysaa haddaad u ducaysidna ilmihii ducadii waad la helaysaa marka maadaama uu labadiiba markuu helayo waalidka waxa looga baahan yahay mar walba inuu ducada ku dadaalo Maxamed Muuse Universal TV waqooyiga Yurub Finland